أعماش إلهي سبحانه وتعالى كوغو جعلها وحا كمدا إصلاحا دادك دحدود إن لو وناتشيو هدي أي تهي لبقف هدي أي تهي قيس لحدي هدي أي تهي لبا قبيل هدي أي تهي لبا أمدود قف كستوي نغاي نغمد أو بلد كين جوغا ونيديسو أي في عنتهي وحور وريور بهار كقبا أو كمرغيسن يحي dhibaatada markaa waxa weeyaan ka socota laascaanood ka taagan waa arin aynu ka warwarsanahay waa arin aynu ka murugaysanahay waa arin aynu ka xunnahay oo inaan ku faraxsanayn innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وأحذركم وأحذر نفسي عن مخالفة أمره ونهيه أيها المسلمون اعلموا أن من أحب أشياء إلى الله تبارك وتعالى الصلاح والإصلاح فالصلاح هو صلاح النفس بالوحي الذي جعله زكاة وطهارة والإصلاح هو تقويم ما انحرف من أحوال الفرد أو الجماعة أو إصلاح ما فسد بين العلائق بين اثنين أو بين طائفتين على مقتضى الشرع الحنيف فالإصلاح هو تقريب بين القلوب المتنافرة ولما شعث في الآراء المتباعدة وإعطاء الحقوق الواجبة لأصحابها بسعي المصلحين وحكمة الراشدين وإصلاح ذات البين باب من أبواب الجنة وأمان من الفتن الخاصة والعامة وجلب المصالح خاصة وعامة ودرء المفاسد يعم ضررها ويطير شررها والإصلاح لذات البين سد لأبواب الشيطان التي يدخل منها على الإنسان والإصلاح ذات بين من مقاصد الإسلام العظيمة وتعاليم الحسنة الكريمة قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إخواني في الله بإذن الله تبارك وتعالى خطبتنا ما أنت وحي كسابسنتهي wanaajinta iyo islaaxinta dadka walaalaha dhexdooda dadka muslimiinta ah marka ay dhibaato dhex marto diinteenu waxay noo sharciyeysay dhexdooda wanaag iyo walaalnimo in la baadi doono acmaasha ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku ugu jecel yahay waxa kamid ah islaaxa salaaxa iyo islaaxa salaaxu wuxuu yahay qofku inuu naftiisa wanaajiyo كوناجيو وحيغا إلهي سبحانه وتعالى دين تاسو قفك سببه ugu ah inuu adduunyadana badbaado aakhirana badbaado islaahuna waxa weeye dadka dhexdooda in la wanaajiyo haddii ay tahay laba qof
haddii ay tahay qoys dhexdii haddii ay tahay laba qabiil haddii ay tahay laba ummadood haddii ay tahay markaa waxa weeyaan khilaafka dhexdooda imanaya in la islaaxiyo wanaag iyo walaaltinimo la baadi doono waana cibaado aad iyo aad u weyn weeye ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa aslixuu daata baynikum waa dhexdiinna wanaaj fattaquu allah ilaahay ka cabsada baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala alla ka cabsiga baa aayadda la soo horraysiiyey maxaa yeele alla ka cabsigu wuxuu keenayaa in qofku iska ilaaliyo xuquuqda dadka kale inaanu dulmiin ilaahay ka cabsada baa rabbi yidhi tabaaraka wa taala ilaahay ka dhowrsada oo rabbi subxaanahu wa tacaala ka cabsada wa aslixuu daata baynikum dhexdiinnana wanaajiya baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala in kuntum mu'miniin haddii aa mu'miniin tihiin iimaanka iyo muslimnimadu iyo mu'minnimadu wakhtiga amnigee nabaduun ma shaqayso wakhtiga colaaddaa laga doonayaa wakhtigu qofku dherarsan yahay baa laga doonayaa wakhtigu dhibaataysan yahay baa laga doonayaa mar wal oo ay dhibaata iyo khilaaf yimaado ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo diintiisa inaynu u noqonno ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka mar kale waxaa ku yidhi innama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaquu allaha lacallakum turxamuun alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniintii waa walaalaba alla yidhi subxaanahu wa tacaala fa aslixuu bayna akhawaykum waa dhexdiinna wanaajiya oo dadka walaalahee mu'miniin tahay dhexdooda ha wanaajiyaan ilaahay ka cabsada baa alla yidhi tabaaraka wa tacaala si ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa au heshaan naxariista ilaahay baa lagu helayaa islaaxa iyo alla ka cabsiga alla subxaanahu wa tacaala mar kale qur'aanka waxa uu ku tilmaamay kulammada iyo markaa isu imaatinada dadka ay isugu imanayaan kuwooda ugu qiimaha badan inuu ka mid yahay kulan wax lagu hagaajinayo kulan wax lagu fasahaadinayo maaha kulan wax lagu kharribayo maaha waa kulan wax lagu wanaajinayo oo wixii kharribmay lagu islaaxinayo oo walaalnimo iyo wanaag lagu baadi doonayo laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqa aw macruuf aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtigaa'a mardaati illaah fasawfa nu'tiihi ajran cadiima in badan oo faqa iyo kulammada dadku isugu imanayaan ah khayr kuma jira baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala aayaddan 3 baa lagu sheegay ilaa man amara bisadaqa meel sadaqadiyo wanaag la isu faraya mooyaane iyo wax bixin ow islaax ama dadka dhexdooda la wanaajinaya wanaag baa laga wadaa macruuf baa la isfarayaa munkar baa la iska reebayaa ow islaaxin bayna annaas ama dadka dhexdooda waa la wanaajinaya cidda 3daa qaybood gole ka qayb gasha waman yafcal dalika ibtigaa'a mardaati illaah isagoo uga qayb galaya ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa ikhlaas iyo niyad tamaan hadhow baanu siin doonnaa baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala abaalmarin weyn walaalayaal wax kale iska daaye waxay diinteennu ka hadashay ninka iyo ooridiisu markay iskhilaafaan in loo saaro xeer beegti dad dhexdhexaada dad muslixiina dad ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddii u socda oo wanaagga qoyska ka talinaya waa unuggii bulshada waa oori iyo ninkeedoo iskhilaafay alle wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala fabcathuu xakaman min ahliha wa xakaman min ahlih in yuriida islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa waa ninkii ooridiisoo iskhilaafay ummad ka badan maxaad u malaysay waxaa loo saarayaa nin xagga gabadha ka socda oo xakam ah oo caadilah oo lilaahi ku socda oo danta qoyska markaa waxa weeye ka talinaya iyo nin xagga waxa weeyaan xagga ninka ka socda wanaag iyo islaax iyo niyad samaan hadday ku socdaan ilaahay labadan iskhilaafay buu iswaafajinayaa xagga kalena waa loo dhigay oo hadday labada iskhilaafeen markaa niyadoodu wanaagsan tahay xeer beegtida arrinka loo dhiibay ayaa rabbi subxaanahu wa tacaala halka ugu munaasibsan uu markaa ku waafajinayaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam xadiidka markaa saxiixaynka ku jira min xadiidi abaa hurayra wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam kullu sulaama min annaasi calayhi sadaqa xubin kastoo xubnaha qofka ka mid ah maalintii sadaqaa lagu leeyahay maalin kastoo ay qorraxi soo baxdo sadaqadaa waxa ka gudaya oo waxa weeyaan qofku markaa waxa weeye sadaqadaasi ay kaga baxaysaa kelmad markaa waxa weeye wanaagsan oo dadka faro ama waxa weeye sadaqadu la yimaado ama laba qof oo iskhilaafay oo dhexdooda markaa wanaag iyo walaaltinimo uu ka baadi doono qof kastoo inaga mid oo beledkeenna jooga
oo niyadiisu ay fiican tahay wuxuu warwar iyo warbahaal ka qabaa oo uu ka murugaysan yahay dhibaatada markaa waxa weeyaan ka socota waxa weeyaan laascaanood ka taagan waa arrin aynu ka warwarsannahay waa arrin aynu ka murugaysannahay waa arrin aynu ka xunnahay oo inaan ku faraxsanayn warwarka iyo murugada aynu ka murugaysannahay haddii niyadeennu ay taa noqoto ilaahayna aynu barino subxaanahu wa tacaala ilaahay xalka waa soo dhowaynaya tabaaraka wa tacaala maxaa yeele ilaahay quluubta addoommaha ayuu eegaa saddex qofbana xil gaaraa saaran ninka culimmada ee mimbarka saaran ee ummadda u khudbadaynaya mas-uuliyad gaara baa saaran ninka culimmada ee mimbarka saaran ee dhaxalkii ambiyada xambaarsan ninka caaqilka ah ee ummadda markaa waxa weeyaan hormuudka u ah ee odayga u ah ee ayniga jooga isagana maanta xil gaara saaran horena xil gaara u saaran qofka mas-uulka ah ee midida daabkeeda haya isagana xil gaara saaran kelmaddiisu ku xisaabtan bay leedahay kelmadaha dadka kale la mid maaha ficilkiisuna ku xisaabtan buu leeyahay ficilada dadka kale la mid maaha ilaahay waxaynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala saddexdaba inuu munaasibka waafajiyo iyo arrimaha halka ugu muhiimsan acmaasha ilaahay loogu dhowaaduu ka mid yahay islaaxu marka dhibaata meel ay ka dhacdo culimmada iyo waayeelka iyo nin kastoo maanta kelmaddiisu ay masnuuc tahay ama dadka hortooda haybad iyo horjoogsi ku leh ama kelmaddiisu markaa la maqlayo ama inuu wax hagaajin kara maanta inuu dib u joogsado waxa weeye lama gudboona inuu idhaahdo aniga ciidima iimay sheegin iyo cidiga lama tashanin iyo waxaasaa lay odhan maanta maalintii ninka weyni odhan lahaa maaha dhiigga dadka muslimiinta ee daadanaya sidii loo joojin lahaa in laga qayb qaato oo cidda wax ka taraysa ay ka qayb qaadato cidda hadalkeedu wax kharibayso ee leyla wa nahaaran ka hadlaya social mediaha ee waxa weeyaan siday doonaan u hadlay ee ragga leh ee dumarka leh ee dadka yaryar leh ee dadka waaweyn leh ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba ka cabso war kelmaddu waa qoran tahay ina alcabda la yatakallamu bilkalima laa yulqi laha baala kelmad buu qofku ku hadlayaa aanu dhaadaynin miisaanka iyo martabada inay taagan tahayna aanu ogayn dabadeedna sababan ugu noqotaa bisababi haadihi alkalima kelmaddaa uu yidhi darteed inuu ku shalwado oo cadaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga shalwado qorax ka soo baxyo qorax ka dhac masaafo waxa weeyaan u dhaxaysa wuxuu ka warramay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari saxiixa ku jira min xadiidi abi bakra waxaa nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam inankii u awowga ahaa ee xasan ibnu cali radia allaahu canhuma isagoo ka warramaya ina bnii haada inankaygani buu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam waa inanku awowga u ahaa waa sayid buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam waa hormuud walacala allah an yuslixa bihi bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin waxaa nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam inankaygan waa inanku awowga u ahaa waa xasan ibnu cali radia allaahu canhuma waa nin wanaagga iyo khayrka ku abtirsaday nebi maxamed baa awowo ah faadumo ayaa dhashay waa ina cali bni abi aalib sayid weeyaana waaro hormuud ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku islaaxinayaa oo ku islaaxin doonaa laba fi'o iyo laba qaybood oo muslimiinta ka mida oo waaweyn ayaa sababtiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku islaaxinaya ayuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xilli beenta xataa la fasaxay beenta marka wax lagu islaaxinayo ee dadka markaa la isugu soo dhowaynayo waa waqti qofka been inuu sheego loo fasaxay waa ka nebigu uhi laysa alkadaab alladii yuslixu bayna annaas beenaale ma aha qofka dadka dhexdooda wanaajinaya ee kana khayr u sheegaya si ay dadku isugu soo xeebtaan oo markaa waxa weeye dhexdooda ay u wanaajiyaan kaasi beenaalahaba ma aha buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam ikhwaani fillaah walaalayaal dhiigga dadka muslimiintii waa qaali weeye masaa'ibka aakhiru zamanka dhacaya inuu ka mid yahay ayaanu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabuhu sii tilmaamay waxaa ka mid ah dilka iyo dagaalladu inay badan doonaan aakhiru zamanka markaasaa dardaaranaduu bixiye nebigu waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam inaanu qofku markaa waxa weeye ka qayb qaadan ee naftiisa uu ku mashquuliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala taacadiisa aquulu maa tasmacuun واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد. ولا ليال عد دير بين كل شيء وين ليناهي ولا ليال عد كستو أرنتها وحكا قبن كرتا oo arintaasi waxa weeyaan ay suurtagal u tahay inay wax ka qabato inay isu taagto dhaxda u xirato weey ilaahay subhanahu wa ta'ala ay kaashadaan dadkii wanaagsana ee inaga markaa waxa weeyaan in badan inaga mid ah aynu fahamsanahay ee dhaxdeena joogu jira maanta xabaalaha ku jira markay dhibaato dhacdo iyaga dhaxda u xiran jiray waa lagu canaanan iyo waxaas lagu oran jirin dhaxda ayay u xiran jireen ilaahayna subhanahu wa ta'ala in badan oo kamida waa ku guuleeyay qofka aan waxba ka qaban kareyn inuu carabkiisa haysta ayaa wanaagsan oo aanu dabka ku sii horunin nabigeenu kaleey salaatu wasalaam xadiidka imaam tirmidhi ee saxiixa ah abi dardaa uu nabiga ka warinayo wuxuu nabigu kaleey salaatu wasalaam ala akhbirukum bi afdal min darajati as-siyam was-salati was-sadaqa warma idin sheegaa buu nabigu kaleey salaatu wasalaam wax ka wanaagsan oo ka fadli badan oo ka darajo sareeya soomka iyo salaada iyo sadaqada intaba waa tii sunna ahayd weey sadaqada uu qofku la baxayo iyo salaada iyo waxa la koreeyay soomka qaalu bala ya rasuul allah rasuulka ilaahay noo sheeg bay dhaahdeen islaahu dhaat albayn weeyaan buu nabigu kaleey salaatu wasalaam dadka walaalaha dhexdooda la wanaajiyo weey wa fasaadu dhaat albayn dadka walaalaha dhexdooda la fasahaadiyo oo xumaan iyo dhibaato dhexdooda laga dhigana hiya alxaaliqa weeyaan buu nabigu kaleey salaatu wasalaam waa mid xiirta timaha ay xiiraysa ma aha qofka timaha ay ka xiiraysa qofka diintiisa ay xiiraysa bal adigu fiirso markay fitanku dhacaan u fiirso qofka diintiisii waayeelnimadiisii odaynimadiisii dad badan oo inaga mid waxa laga yaabaa in markaa waxa weeyaan ay galaafato oo meesha waxa ay ka baxdo markay fitanku yimaado nabigu dardaaranku bixinaya waxa uu yahay in lagu dadaalo cid kasto arinta wax ka qaban karta inuu markaa isu taago fadliga weyn bay leedahay walaalayaal in badan buu ka warramay nabigu kaleey salaatu wasalaam markale nabigu wuxuu kaleey salaatu wasalaam ala adulluka ala sadaqatin yuhibbu mawdi'aha warma idin tilmaaba buu nabigu kaleey salaatu wasalaam xadiidka markaa isaguna markaa waxa weeyaan imaam albani tasxiixiyay أبي أيوب الأنصاري النبي عليه الصلاة والسلام كورينيو وحو النبي قول ما يدين تلماما صدقات أو قيمها بدني موضع عادي مشي هذا دعيسة تصلح بين الناس دتك ولا الله دحدود الله إصلاحيو وهشيس ولا لما لقب هذه دونه أي ويان بو النبي قول عليه الصلاة والسلام فإنها صدقة يحب موضعها وصدقت يمركها وحوي السمفل موضع عادي مشي هذه دعدي أي كتلنا من رسولك عليه الصلاة والسلام ولا ليال حالات أدق يا كجرة dadka muslimiinta ahi waa dad walaalo ah waa dad xigta ah dhibaata marka ay dhacdo dadku waa inay saddex qaybood mid afraad waana yeelan cid arinta isu taagta oo wax ka qabata cid wax ka qabanaysa ee wanaajinaysa taageerta oo barbar joogsata iyo cid aan iyadu waxba qaban karin oo ka dhib la'aato ka aamusta oo aan waxa weeye dhibaatada waxba ku darsan maanta waxayna la gudboon sidii hore si ka badan inaynu ducaysano sidii hore si ka badan inaynu Allah u barino oo inuu Rabbi subhanahu wa ta'ala weydiisano in Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibka waxa weeyaan taagan ee dadka walaalaha dhexdooda taagan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu naga qaboojiyo oo Rabbi subhanahu wa ta'ala biyo markaa waxa weeyaan naga shubo thumma sallu wa sallimu ala rasulillah امتثالا لقوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين إلهي وحن ويديسنا سبحانه وتعالى مقعدي سوان وناكسن إيا صفات كيس سرسرية إن إلهي سبحانه وتعالى نباتذا إيا علادا إلهي سبحانه وتعالى إنه نقدميه
إلهي سبحانه وتعالى هينا قدميو دادك ولا لا دحدو ده الشيسي ولا لما الله حدقو إلهي قلوبتين هيسو صوتمو قلوبته ولا لها إلهي سبحانه وتعالى هيسو صوتمو عد مركا وحوي نسو تاكتا أو دبكا وحوي وحققبتا وإلهي سبحانه وتعالى كلمته ذكو إصلاحية إلهي سبحانه وتعالى هو صار إلهي هوا فتشيو إلهي هوا فتشيو انت دمت إلهي سبحانه وتعالى هو نحرسته انت داو عن إلهي سبحانه وتعالى هو بوغدايو انت بدقبتن إلهي سبحانه وتعالى بدقبك إلهي سبحانه وتعالى هو زياديو إنك مركا إن لقد بوني التاوييان إنه مرول بإلهي سبحانه وتعالى برينو وإنه كحنا هاي نيدي إنه كمدقنا وإنه كحنا هاي إن بدن بإنه كحنا هاي إلهي سبحانه وتعالى وحويجي سرنا إن إلهي سبحانه وتعالى ينقدميو علاد الله ينقدميو إلهي علاده ينقدميو ولا لماذا دحدنا الله السوعليو إلهي سبحانه وتعالى محبيك القعيلها كبدلو انت لمتين الله نحرستو انت النور الله سبحانه وتعالى هبت باديو dadka dhibaatada ku dhacday ilaahay subhanahu wa ta'ala libka Allah ka dulqaado ilaahay subhanahu wa ta'ala asaasan weydiisanayna